صدام حسين لما تسمع اسمه اقف واضرب له تحية. صدام حسين فارس الأم وصقر العرب، يرحم روحك يا صدام. تعال اليوم وشوف أحوالنا. saadaam xuseen madaxweynihii ciraaq marna ay carab ugu yeeri jirtay libaaxii carabta weliba xilligii uu dagaalka kula jiray waddanka Iiraan. أهلا وسهلا. تعرف هذا الرجل؟ هل يوجد أحد لا يعرف صدام حسين البطل الذي خسره العرب جميعا بوفاته؟ باستشهاد صدام حسين أدركت المنطقة حجم هذا الرجل. هذا الرجل له مكانة خاصة في موريتانيا، ولد الموريتانيين. رجل في زمن قل فيه الرجال وحاكم بمعنى الكلمة. من بعده ضاعت العراق وضاعت الأمة العربية كلها. هذا رمز الأمة العربية صدام حسين. أي والله الله يرحمه يا رب. saadaam xuseen waxa uu ku dhashay 28 abriil 1937 magaalada Tikrit. markii uu 20 jirsaday saadaam waxa uu ku biiray xisbiga Bacas oo ka dhisnaa dalkaasi kaasoo ujeedadiisu ahayd in la mideeyo wadamada carabta ee bariga dhexe. isku day dil fashilmay oo lagu qaari jiray madaxweyne xilliga Qaasim oo ay dhigeen koox uu ka tirsanaa saadaam xuseen oo dhacay 1959. waxa uu baxsaday wadanka Suuriya dhowr sano oo halka ku noolaa. waxa uu kaga sii gudbay wadanka Masar halka uu intuu ku sugnaa ka bartay culumta sharciga. 1963 markii la afgambiyay xukuumadii Qaasim, saadaam waxa uu ku soo noqday wadanka Ciraaq waxaana la xiray sanadkii xigay. intuu xabsiga ku sugnaa waxa uu ku sii jiray arrimihiisa siyaasadda waxaana loo magacaabay xoghaye ku-xigeenka gobolka. ugu dambeyntii waxa uu ka baxsaday xabsigii waxa uuna noqday mid leh awood siyaasadeed. 1968 saadaam waxa uu ka qayb qaatay afgambi aan dhiig ku daadan taasoo xukunka kula wareegan xisbiga Bacas. madaxweyne waxaa laga dhigay Axmed Xasan al-Bakar halka saadaam uu noqday madaxweyne ku-xigeen. saadaam waxa uu ismuujiyay inuu yahay nin saameyn ku leh siyaasadda waxuuna wax ka qabtay kaabayaasha dhaqaalaha, beeraha iyo wax soo saarka, waxbarashada. sidoo kale waxa uu qarameeyay warshadihii saliidda ee Ciraaq taasi oo siyaadisay dakhliga dowladda. intii loo guday jiray xilliga saadaam wuxuu gacan ka geystay samaynta barnaamijka hubka kiimikada ee markii ugu horeysay Ciraaq yeelato. sanadkii 1979 markii al-Bakar isku dayay inuu mideeyo Ciraaq iyo Suuriya, tallaabadaasi oo saadaam ka dhigaysay mid aan awood lahayn. saadaam waxa uu ku qasbay al-Bakar inuu iscasilo. July 16 1979 saadaam wuxuu noqday madaxweynaha Ciraaq. wixii xilliga ka dambeeyay saadaam wuxuu isbedel ku sameeyay xisbigii waxuuna liiska ka saaray 68 ka mid ah xubnihii xisbiga. 1980 saadaam wuxuu amar ku bixiyay in ciidamadiisa weeraraan gobolka Siriida qaniga ku ah ee Khuzestan ee wadanka Iiraan. weerarka oo isku ragay dagaal weyn oo aan wax natiijo ah laga gaarin taas oo malaayiin labada shacab ay ku dhinteen uuna labada dhinac ka soo gaaray dhaqaale burbur baxsan halka ay labada dawladood ay loodin kari waayeen. dagaalka oo socda muddo 8 sano ayaa qaar ka tirsan wadamada carabta oo ka cabsi qabay in uu faafo dagaalka waxay taageero siiyeen saadaam xuseen iyagoo u suray baalgoray kuna tilmaamay inuu yahay geesiga carabta. laakiin arrintaas oo mar dambe ay ka noqdeen waa markii uu weeraray saadaam wadanka Kuwait sanadkii 1990 isagoo wadanka Kuwait ku qabsaday hal maalin oo qura waxaana cabsi soo wajahday wadamada carabta ee xuduudda la leh Ciraaq iyo koox xirtay xuduudooda. waxaana saadaam lagu qaaday weerar Mareykanka horkacayay ka oo lagaga saaray saadaam wadanka Kuwait. laakiin Mareykanku halka kuma joogin kadib weerarkii mataamaha Mareykanka Sebtembar 11 2001 waxa weerar ku qaaday wadanka Ciraaq isagoo ugu soo gambanaya dunida iyo carabtana ka dhaadhiciyay inuu saadaam haysto hubka waxkumaada. waxaana saadaam oo ku dhuumanaya beer ku taala magaalada uu ka soo jeedo ee Tikrit la soo qabtay sanadkii 2003 waxaana la soo taagay maxkamad iyadoo lagu xukumay dil toogasho ah. saadaam oo la doodo qareenkii ku xukumay dilka toogashada ayaa yiri xaakim aniga maahay arday wax ka dhigtay iskuulkaaga igu xishmay inaan ahay madaxweynahaaga. hadalladii uu ka tagay saadaam xuseen kitaabkaas gacantii ugu jira ayaan aaminsanahay weligeena aaminsanaa wax geeriya kama baqayo. laakiin Ciraaq waxaa gacanta u gelisay yuhuud iyo kufaar carab oo dhan waa la kumaystiyaal kor laga haysto arag Sacuudiga arag Imaaraadka Kuwait iyo maanta Ciraaq. waxaan ka xumaa anigoo arkay in dalkayga lagu soo duulay ayna dadkayga gacmaha iga xireen. idhagiisa shacabka islaamka marnaba ha ogolaan in dalkiina ay soo fargeliyaan yuhuud iyo reer galbeed. kuwa daciif oo idinka mid ah ayay qalbiga ka xadayaan kadibna dalkiina ayay la wareegayaan. waqtigii rasuulkana way jirtay arrintaas. maxkamadda markay ku dhawaaqdeen ugu dambeyntii la daldalay madaxweynihii hore Ciraaq ayuu yiri saadaam isagoo aad u qiiraysan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ciraaq way jiraysaa saadaam geeri kama baqayo. gaalo ayaad u shaqayseen oo dalkiina gacanta u geliseen. Allahu akbar. Allah ya abuurta ayaan dib ugu noqonayaa.
naclatullaahi maraykani wixii taageersan geeri waa xaq saadam waa baxay shacabka ciraaqow kadib isagoo salaad sunnaha tukaday kadibna kitaabka ayada ka akhrista ayaa la daldalay maalin ciid ah wadamo badan oo carabu sacuudiga ugu horeeya maraykanka u gudbiyey codsi inaan la daldalin maalinta ciidda oo maalin farxadeed waa dadka muslimiinta ah laakiin dheg jalaq looma siin oo waaba la doonayay in muslimiinta lagu niyad jabiyo ciraaqna saadam kama dambena waa la burburtay ilaa maantana sooma kabsan oo ma jirto ciraaqdii saadam xilligiisii jirtay awoodda ay lahayd haybadda iyo sharafkii shacabka ciraaq ciidamada ciraaq xilligii saadam xuseen waxay noqdeen ciidamada afaraad ee ugu quwadda weyn adduunka saadam xuseen waxaa la daldalay 2006 maalin ciid adxa ah oo ah ciidda inagu soo fool leh waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka أسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجن وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي عيب على رجال قام وجابها